waxaa mahad ilaahay ah inaan maanta u wada joogno qalin jabinta dufcaddii shanaad ee ka qalin jabiso kulliyadda ciidanka Turkisom. marka koowaad waxaan farxadda reynreynta iyo damaashaadka la wadaagaya saraakiisha iyo saraakiil xigeenada qalin jabinaya waalidiintooda macallimiintoodii iyo maamulka kulliyadda oo waqti dheer u soo dhabar adeegay inaan soo gaarno meesha aan maanta joogno. qiimaha ay maanta qarannimada ugu fadhiyaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada qalin jabinayo waxaa garan kara oo keliya qofkii u dhunduleelo xog ogaalna u ah baahida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qabo inuu helo dhiig cusub oo ku soo biiro hogaaminta howlaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa nagu soo wajahan maalmo adag oo aan dhexda u xiran doono inaan dalka ka sifeyno argixisada dhiig miiratada ah ee noqotay caqabadda ugu weyn ee dawladnimada haysato. waxaa nagu soo wajahan maalmo taariikhdu qori doonto raggana kala saari doonto oo si dhab ah loo fara saari doono argixisada iyo argixisgaalgaalka. fursadda aad maanta hesheen ma aysan helin saraakiil iyo saraakiil xigeenno badan oo idinka horreeyay. waxaad nasiib u yeelateen inaad heshaan aqoon tayo leh oo wax weyn ka tari doonto waxqabadkiina mustaqbalka. waxaad rajo u tihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee argixisadu caburinayso. waxaad badbaado u tihiin diinka Islaamka ee argixisadu ku been abuuranayso. waxaad hormuud u tihiin halgan qaran oo dib u xireen dhammaystiran dalka loogu sameyn doono. waxaan had gaara alle ka sokow walaalaha Turkiga iyo madaxdooda gaar ahaan madaxweynahooda halyeyga ah ee Rajab Tayyip Erdogan oo u guntagay sidii ay Soomaaliya u heli lahayd ciidan hanan kara amniga qaranka Soomaaliya. gacanta uu Turkigu ka geysto iyo heerka qaran ee uu sida hagar la'aanta ula garab taagan yahay Soomaaliya waxay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay walaaltinimada iyo gacaltooyada ay Turkiga iyo madaxdooda u qabaan Soomaaliya. shacabka iyo dawladda Soomaaliyana waxay mar walba dareensanaan doonaan abaal weynna weligood u hayn doonaan walaalaha Turkiga.